inta uu aadanaha soo noolaa mar waliba tiknoolajiyadu waa ay jirtay waana uu adeegsanayay waxaana ay saameyn ku lahayd habnololeedkiisa tiknoolajiyada waxaa dhalay sayniskuna waa cilmi iyo aqoon la helay oo dadku ay ogaadeen sayniskaas marka uu adeegsi galo ee uu noqdo agab nolosha lagu isticmaalo ayuu noqdaa tiknoolajiyada qeexitaankeeda waa saynis oo adeegsi galay haddii uusan adeegsi gelin balse yahay cilmi la og yahay oo buugta ku qoran waa saynis oo keliya tusaale qarnigii 17aad waxaa soo baxay xeerarkii aqoonta ee Newton laakiin 300 oo sannadood kadib ayaa waxaa la sameeyay dayax gacmeedkii ugu horreeyay dayax gacmeedkaas waxaa lagu dhisay sayniskii la helay 300 oo sannadood ka hor laakiin markii la farsameeyay ayuu tiknoolajiyada isku bedelay tiknoolajiyada bini'aadamka ayaa sameeya iyadana bini'aadamka ayay samaysaa noloshiisana qurxisaa haddaba daawade ma jiraa saynis aad og tahay in aan weli loo bedelin tiknoolajiyad balse cilmi ahaan u jira mise isleedahay waxaa jira saynis u baahan in loo bedelo tiknoolajiyad la taaban karo